magacaygu waa Maxamed Ismaaciil shiinaan ku magac dheerahay xubin ka tirsan guddiga ganacsiga howlo badan xaafaddu u hayo. Maanta waxaa marti noo ahaa PS-ka ganacsiga trade ee waddankan Kenya, Madam Regina. Guud ahaan waxaan u yeernay qaybaha kala duwan ee ganacsiga xaafadda ka jiro dadka mas'uuliintooda. Runtiina waa loo gudbiyay cabashooyin badan. Cabashooyinka maanta taagana waxay tahay ganacsiga Islii inuu mar dhow ku socdo inuu xirmo sababtoo ah dawladdii oo adkaysay wixii dibadda laga keenayay cashuurihiina kordhisay shuruudo adagna keentay taasoo ku kaliftay ganacsatadeena intooda badan inay maanta alaabta kala soo degaan waddankan dariskana iyo Tanzania maadaama waddankaasna iyo waddankaana ay ku wada jiraan East African Community ay xaduudkana si toos ah ugu soo gudbisaan oo lacag yar oo cashuur VAT-ga ay iska bixiyaan taas waxay keentay ganacsigii badnaa iyo containeradii badnaa maalin walba Islii ku degi jiray muruqmaalka alaabta dejiya xamaaligana ay dhaqaale ku heli jireen ganacsatadana alaab badan ugu imaan jirto si fudud ugu imaan jirtay maanta inay meesha ka baxday cashuurtii oo kor u kacday sanad walba lagu sii darayo haddaan مثلا soo qaado containerkii 1 milyan iyo bar lagu soo saari jiray 3 sano ka hor maanta wuxuu marayaa 6 milyan ilaa 7 milyan waxa uu sii dheer daahitaan badan oo dhowr bilood dekada ku xayiran yahay ayadoo wax saxan aan dadka loo sheegin marka dhibaatooyinkaas oo aan la wadaagnay wayna noo ballan qaaday inay wasiirada iyo hay'adaha kale aan ka caawinayno dhan maadaama iyada ay awood u leedahay kulamo ay yeeshaan isbuuc walba iyo bil walba madaxweynahana si toos ah xiriir ay wada leeyihiin inay la wadaagi doonto xalna nooga keen doonto insha Allah marka muhiimadeena maanta kulankeena kaas oo ahaa inaan la wadaagno wasaaradda ganacsiga ee waddankan PS ganacsiga waxaa xirayo dawladda oo adkaysay cashuurteena kordhisay laba jibaar in ka badan waad dareemi kartaa shayga 1,000 shilin ku fadhiisan jiray maanta hadduu ku yimaado 3,000 adiga maxaad gadaysaa waxay ka tahay in Soomaalida si kordho cashuuraha iyo ka gudaha dalka Kenya gudaha wadamada kale East Africa ganacsi ahaan wayba ku socotaaba haddii sidaan ay ku soo socoto waxa haddii sidaan ku sii socoto cashuurta dheeriga iyo tacadiga kala kulmayaan dekada iyo wasaaradda waaxda cashuuraadka ay sidaan ku sii socoto oo sanad walbana ama 6 biloodba dhaqaalaha kor loogu sii iidoon wada tashi la sameyn dadka afti aan laga qaadin waxay sababaysaa in ganacsiga Soomaalidu uu wareego Tanzania iyo wadamada kale dariska ah marka taas ay cabashada aan qabno iyo cabsida aan qabno ah in dawladda ay wax nala fahanto dadkana ganacsatada la fariisato cabashadooda dhageysato waxna ay ka qabato bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Umar Ahmed waxaana isku duwa guddiga ganacsiga Islii maanta waxaan noo imaaday wasiir oo cabinet secretary xogayaha guud ee wasaaradda imaaday ganacsiga marka secretary-yaasha Islii oo dhan way yimaadeen ganacsiyaasha ka kala socda qaybaha oo dhan way yimaadeen iyo anagoo Islii community oo guddigii ah cabashadii waan u gudbinay ayadana si wanaagsan ayay u dhageysatay noona soo dhaweysay noona ballan qaaday inay waxyaalihii aan u soo gudbinay inay ula tagi doonto xafiisyada kale ee dawladda ayna wax ka qaban doonto bisha soo socota bisha 8aad dhexdeedaba inay jawaab lanagu soo naabanayso oo noo sheegi doonto meesha wax gaarsiisay waana mahad ilaahay iyadoo qof meeshan ku dhashay waxay ku dhalatay Pumaan way ku dhalatay shawrmooyo ku soo kortay waa qof garanaysa Islii iyo shaqada ka socota iyo muhiimadda ay u leedahay waddanka gudihiisa marka iyaduna aad iyo aad baan uga mahad celinisay noo soo dhaweysay ee noo cabashadana u gudbisay ee u qaadatay iyo dhageysiga wanaagsan ee nasisana waan uga mahad celinay dhamaantan cabashooyinka waxay u badan yihiin xagga cashuuraadka hay'adaha kale oo dawladda iyo caqabadooyinka culculus ay ku hayaan kambaniyal kale dad kale oo ajnabi ah oo ayagana alaabtii ku iibinaya Islii dhexdeeda kana imaanaya wadamada alaabta laga soo iibsado oo hadda sida Chinese-ka oo badan oo magacawnay inay alaabtiina xagga uga soo iibinay haddana alaabta ay suuqa nooga daba yimaadeen taasna waan sheegnay oo nagu adag tahay shaqadaas hay'adaha kale ee dawladda ee cabashooyinka badan waddanka ku haya khaasatan dadka reer Islii waanu gudbinay inaanu nahnay ganacsatada ugu ballaaran waddanka gudihiisa ama wax soo saarka waddanka keenta cashuuraadka dawladda ku kaba dawladda hoose iyo dawladda saraba way qaratay marka hay'adahaas ayaa cabashadana ay u badnaayeen
iyo iskala dambeyn oo waxaan af kala law and order waxa lagu yiraahdo in dawladdu ay keento isli sidii townka loo ilaaliyay in isniin loo ilaaliyo rabnaa oo sharciiqda oo dhan la keeno oo iskala dambeyn lagu soo uga xaafada isli. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وعبدي أحمد عبد الله داود رنتي وحان أهي نين صحافة وقت دير كسو جيري مركي لو فيريو صحافة صوماليات مدى سواحلغا يو مدى إنجريسيغا خاصة دالكن كينيا وحان دي كرا مدى صدون سنة أيان ماركتي هوشن كسو جيري marka runtii hadafkayga maanta ayaa wuxuu salka ku hayaa tolow ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto maanta warka saxa miyaa u dhacaa mise sidee wax u jiraan dabcan waxaan rabaa horta dhowr qodob inaan soo qaato haddii aan dib ugu laabto waqtiga sanadihii 2006 ayaa waxaan dhihi karnaa idaacaddii ugu horeysay oo af Soomaali ku baxdo oo maaragtay si khaas ah loo lahaa ama privately owned Star FM bahead Garissa ayaa laga asaasay ninkii asaasana anigu ahaa marka waxaad moodaa maaragtay in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto tan iyo maaragtay lixdameeyadii waxay inta badan warka ka qaadan jirtay laanta af Soomaaliga ee BBC-da waxaa xigi jiray dabcan radio Muqdisho oo ahaa maaragtay idaacad aad iyo aad u baaxad dheer u af dheer xilligii maaragtay taladii markuu madaxweyne ka ahaa Soomaaliya Allahu naxariisto Maxamed Siyaad Barre marka taas markaan ka soo tagno ayaa waxaad moodaa inta badan Soomaalida kulli hadarta dhalinyarada waxoogaa maaragtay haddii aan kaftamiyo Gen Z ma garanayn maaragtay war BBC-da 5 galabnimo soo gali jirtay iyo 9 habeenimo soo gali jirtay iyo odayaasha xiligaas maaragtay waxa lagu maaragtay tartami jiray mawjada toloya si fiican u saari doona marka mujtamaca Soomaaliyeed runtii xiligaas waxa weeyaan warka BBC ee soo tobiso wuxuu ahaa war sax ah oo maaragtay dadka ay isku raaci jireen laakiin waxaad moodaa 2006 kadib ayaa waxaa bilaabmay maaragtay bogga Facebook haddii aad fiirisid ama anigu haddaan maaragtay dib waqtigeega u fiiriyo 2006 ilaa 2008 ayaa maaragtay idaacadda Star FM waxay maaragtay iskaashan jireen BBC Somali Service markaas waxaa la bilaabay bogga Facebook aan ku leenahay oo BBC iyo waxyaalahaas ayaa xilligaas soo baxay marka waxaad moodaa maaragtay taasi ayaa waxay dhalisay markii uu dhacay digital revolutionka in maaragtay baraha bulshada maaragtay wax lagu soo qoro ama wax maaragtay lagu soo bandhigo